واتهاي داوديال gabagabadii wararka bariga Afrika ayaynu isla soo gaarnay madaxweyne ku-xigeenka dalkani Kenya William Ruto ayaa shaaca ka qaaday in 47 ismaamul ee dalka la siinayo 368 bilyan oo kamid ah miisaaniyad sanadeedka 2018 ilaa 2019 iyadoo sanadkii tagay la gaarsiiyay 326 bilyan. Mr. Ruto ayaa ka dhawaajiyay in 314 bilyan oo lacagtaasi kamid ah ee dowlad deegaanada qaybsanayaan halka 54 bilyan loo bixinayo ama ahaan inkastoo shuruudo lagu xirayo. Hadalkan ayuu ku-xigeenka madaxweynaha dalka ka jeediyay xilli uu kulan la qaatay xubnaha golaha miisaaniyadda iyo dhaqaalaha ismaamulada iyo dowladda dhexe. Mr. Ruto ayaa carabka ku adkeeyay inay tahay markii ugu horeysay muddo 5 sano ah oo si siman loo qaybsanayo dakhliga waddanka soo gala iyadoo wax iska qabsi ah uusan jirin. waxa uu intaas ku daray in baarlamaanka la horgeynayo qiimahaasi la doonayo in ismaamulada loo qaybiyo. kulankaasi ayaa waxaa sidoo kale loogu dhawaajiyay in 18 kamid ah maamul goboleedyada dalka aysan tan iyo xilliga la dhaqangeliyay nidaamka dowlad wadaajinta sameyn baaritaano ku aadan hantida. maamul goboleedyadaasi ayaa kala ah Migori, Homa Bay, Samburu, Turkana, Machakos, Embu, Meru, Garissa, Tana River, Mombasa iyo Kakamega. Waatahay saaxiibayaal guud ahaan intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa wararka bariga Afrika oo aad kala socoteen TV-ga Kalsan xaruntiisa magaalada Nairobi. waxaan idin socodsiinaya anigoo ah Baash Cumar intaynu mar kale kulmayna sidaas iyo nabadiino.